agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa dhagax dhigay dhismayaal lagu kordhinayo isbitaalka guud ee degmada Arabsiyo. waxaynu maanta halkan taaganahay isbitaalka Arabsiyo oo aynu ku darayno ward iyo qolal dheeraad ah isagoo sidaynu horeba u sheegnay isbitaalkan qaybtiisa kale uu xaaji baxsan dhisay Ilaahay khayr ka siiye waxa ay dawladdu ku kordhinaysaa ward weyn iyo qolal ka dhinaa si uu markaa u noqdo isbitaal dhameystiran oo guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ayaa MCH ay fulinayso dawladda hoose ee degmada Gabley galbeedka magaalada Arabsiyo ka dhagax dhigay. inta kadib wafdiga ayaa u boqolay deegaanka Gowlwanaag oo hoos taga degmada Arabsiyo isla markaana ay xadhiga si rasmi ah uga jareen MCH halkaasi ay ka hirgelisay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. waxaan leeyahay hawl fiican baa la qabtay halka laga sii wado marka waxaan jecelahay haweeneydada caafimaadka ee hadda halkan jooga inaan idhaahdo hawl fiican baad haysaan oo deegaanka u haysaan. Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. maalin waa bariyo maanta lagu jecelahay sababta waxa weeyaan waxaan joogaa deegaankii oo waliba umushii daryeelkeegii xadhiga laga jarayo waa maalin aad iyo aad u qiimo badan. waxaan aad ugu mahadcelinayaa agaasimaha wasaaradda caafimaadka oo soo maanta xafladda jooga oo hawshan ka qayb qaatay. runtii waan uga abaal celinaynaa ka deegaan ahaan waxaanu leenahay jazaakumullahu khayr. farxad weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo waxa weeye dhismahan qiimaha badan oo ay noo dhistay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu nagala joogo agaasimihii guud ee wasaaradda. waxaan leeyahay agaasime Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro adiga iyo wasiirkaba. laba baahi oo taagnaabay runtii dadweynaha deegaanku noo soo gudbiyeen oo mid tahay shaqaalihii oo inta wasaaradda ama hay'adda loo helayo ay muhiim tahay wuxuuga meel la sii saaro. arrintaa waanu ka aqbalnay oo 7 shaqaalaha runtii dawladda hoose Gabley ay mushaharka siin doontaa inta xaqa ama xuquuqda u soo baxayso wasaaradda horumarinta caafimaadku. qodobka labaadna wuxuu ahaa soolarta oo maadaama meeshu tahay deemii loo baahan yahay in laydhkii habeenkii iyo maalintiiba la helo. taasina runtii waan ka aqbalnay. 2400 doolar bay ku soo qiimeeyeen. waxaan jecelahay halkan maamulaha xanaanada inaan ku wareejiyo jeegii aan ugu talagalnay inay ku soo iibsadaan soolarta oo 22 milyan oo lacagta ay ku qiimeeyeen soolarta xanaanada. marka iyadan insha Allah taala inay noo hirgasho rajeeyna kale aniga maanta farxad bay tahay iyo mar kastaba waayo waxa la koobsaday gobol horumar loo wada jeedo oo dadku gamcays wada haysto. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay munaasabadan maanta halkan ka dhacaysa maadaama iyadoo tahay in dadku garteen inay wax qabsadaan dawladooda isgarab taagaan. waxay ahayd riyo runtii muddo dheer socotay waqtiyadii aynu sarki jiray inta badan waqtiyada ololaha ay u badnaayeen oo ma ololayn baa lana soo maraabay dadku ma maalintaas baa loo baxday oo dhan jireen. marka ballanqaadyadii xukuumaddii waqtigii Muuse doorashadiisii dambe ballanqaadyadii aynu qaadnay bay ka mid ahayd in dhinaca caafimaadka iyo waxyaabaha deegaanka uu tabanayo runtii in wax laga qabto. waxay ahayd xanaanadii ugu hor dhisantay xanaanooyinkii markaa la bixiyo 12 xanaano ah. haddii ay inta la furo haddana shaqayn weydo waxba lama faa'iidin. marka waxaanu doonaynay inay noqoto meeshii meel marka la furo dadkii u adeegaysa oo marka ay furanto shaqaynaysa. imikana way dhadhowdahay wixii dawo ahaa iyo wixii qalab ay u baahnaydba marka runaantii waanu soo dirnay. talaajada ka dhibanna waynu keenaynaa maadaama ay maayirkuna bixiyey soolarkii way ka warhayntaan wasaaraddu oo dawooyinka meesha ay hooyooyinka iyo carruurtuba u baahan yihiin. wixii horena waanu soo bixinay. imika hadday wax dhiban yihiinna waan soo bixinaynaa dawooyinkana waanu keenaynaa. Muuse Xuseen Xasan, Zam News TV, degmada Arabsiyo ee gobolka Gabley.